السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليها جودة عيدن كبوليس كتمريد السوماليلان تليها والجريدة سراكيشة تليها قيبادية شركات الدوية يقعدين لي ده كل شيء يستعب كدوية يدمان أنت وربعين تنقد دعوانا يسوا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي ومهد سبحانه وتعالى هل كان واحد نكون جبين ما أنت خلاف في رأي سواك على دحق علي الشركات دوية يقعدين لي ده كل شيء يستعب كدوية بناء مجوز خلافه يا أنت للنوري هاي لكن واحد نوصل ما يصيرنا يدي ليش خلافه هذا شرعي أو وحي خلافه loola tago oo dhameeya runtii waxaan ku canaanayaa dhalinyarada gaadiidleyda iyagoo aan wax warbixin soo gaarsiin mas'uuliyadii hay'adaha ay khuseysay ayay isku dayeen inay mudaharaado iyo ay sameeyaan fawdo arintaasi waa arin aan la ogolayn dalkeenu waa dal curdina cadow badan baynu leenahay diyaar uma nihin inaynu gallo mudaharaado iyo waxaan loo baahnayn qofka cabanaya hay'adaha sharciga ee ku shaqada leh buu cabanaya laakiin laga yeeli maayo inuu suuqa istaago ama wadooyinka la xiro arintaasi waa dambi cidii dambe lagu qabtana sharciga la horgeeyay khilaafka yimi shirkadda dhaweeye waa shirkad ganacsi oo muddo badan maal gelinaysay inay dadka barto abkan sida loogu shaqaysto runtii dhalinyarada maanta halkan joogta barigi hore taksiilayaashu waxay ahaan jireen inta kuwa gaariga maydha ka soo bilaabaan ayay dabadeedna ku weynaan jireen laakiin maanta dhalinyarada taksiilayaasha waa dhalinyarada jaamacadaha ka baxday waa aqoon-yahankii waa shaqaalihii dawladda oo waqtiga ay jaaniska shaqooyinkooda ka rawaxaan ku shaqaysta abkan dhaweeye waa dadka shirkadaha ganacsatada u shaqeeya oo iyaguna waqtiga ay shaqada ka rawaxaan ku shaqaysta runtii waa dadka halkan noogu yimi waa dad dhalinyaro ah oo dhalinyarada creamka ahayd ee aqoon-yahanka ahayd weeye waxaa loo baahan yahay dalkiina inaad u tudhaan idinkuna inaad nafihiina u tudhaan waxa weeyaan dalkan quruxdan aad ku aragteen iyo nabadgelyadan ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa tacab badanna waa la geliyey rag badan baa u dhintay oo naftooda u huray maal badan baa u burburay iskama imanin waxaa loo baahan yahay maanta idinkaa xooggii dalka ah idinkuna inaad dhinaciina uga diyaargarowdaan sidaad amnigeenna iyo horumarka dalkeenna aad u ilaalin lahaydeen waxa weeyaan shirkaddan waa shirkad shaqataga abkan bay samaysay waa shirkad ganacsi muddo badan bay maalgelinayeen oo sidaa idinku aqirteen 2018 dabayaaqadiisii bay bilaabeen maantana 2021 afartaa sannadood waxay u maalgelinayaan xayisiiska u bixinayaan wax uga soo noqdaan laakiin waxaa loo baahan yahay in dalkeennu dad dan yara baa waxaan ku shaqaysta dhalinyarada jaamacadaha dhigataa ku shaqaysta waxaan ogahay dad duruufo badan ku jira inay ka mid yihiin marka waxaa loo baahan yahay siday xeega u noqon lahayd ilkana u nabadgeli lahaayeen in dhalinyaraduna runtii aanay culays ku noqonin shirkadduna wixii ay tacabkan badan u gelisay ay faa'iido ka hesho marka waxaanu idinku dhexdhexaadinay halkii markii hore 10% ahayd waliba anagoo shirkadda ku ciiray oo runtii mas'uuliyadda shirkadda aanu amar ku ridnay aanu maadaama oo xaalad COVID-19 lagu jiro maadaama jaamacadii iyo dugsiyadii hadda la fasaxayo maadaama aynu ognahay in duruufo abaareed ay waddankeena ka jiraan 5% wax ka badan inaan laga qaadin gaadiidleyda shirkadduna way naga aqbaleen waan u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta shirkadda ee maanta halkan noogu yimi iyaguna way naga aqbaleen markii aanu amarkaa ku ridnay gaadiidleydana fariintaanu faraynaa waxa weeye waar dalkiinna ilaashada fawdo maanta uma baahnin mudaharaad uma baahnin rabshad uma baahnin idinkana dan idinkuma jirto mas'uuliyiinta iyada iyo inta qaranka lexajeclada ka qabtana dani uguma jirto waxaa loo baahan yahay marka cabati yimaado hay'adaha sharciga ee ay khuseeyaan qofkii cabanaya inuu cawdo waxaanu ku soo gebagabaynay in dakhliga guud ee gaadhigu uu shaqeeyo 5% laga jaro oo shirkadda looga jaro dakhliga gaadhigu soo saaro waxa weeyaan hadduu subaxii ku shubanaya $1 halka $1 markuu ka dhamaado ayuu $1 kale ku shubanaya laakiin 5% ayuunbaa wixii uu soo saaro laga jaraya taasaa heshiisa taasaanu hirgelinaynaa taasaanu idinkana idinku ilaalinaynaa waliba waxaanu maanta laga bilaabo waxa weeyaan ma noqonaysaan waxa weeyaan waxa ku heshiisayna ku wada shaqaynaysaan qoraal bay noqonayaan iyo waxa la idin loogiyo dawladdu idin loogtahay oo hadhowta cidii ka baydha talaabo laga qaado aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi